السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح آدي هذا ومهزنتهين موقال كان وحربا إن إذا كل وذاقه مت كم ده dhalinyarada qaxooti ahaan ku timid Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota isla markaana uu saameeyay baaristii ay dawladda Mareykanku ay sameeynaysa oo ugu magac dartay Paris howlgalkaasi oo ilaa 5600 oo qaxooti ah oo gobolka Minnesota la keenay ee dawladdu mar kale dib interview uga qaadaysay background check ay ku sameynaysay kadibna ay ogaanaysay inay u qalmaan qaxooti in kale ayaa bilaabatay dadka waraaqa ayaa loo soo diraya markaasi kadib interview ayaa loo balaminaya haddaba waxa qadka ku jira mid kamid ah dhalinyaradaasi oo magaciisa la yiraahdo Maxamed isla markaana 6 bishan February interview laga soo qaaday hadda aan ku jirno dhamaadkii bishii January markii waraaq loo soo diray Maxamed ayaan rabaa bal inaan wareysto Maxamed soo dhawow bal waxaad warbixin iga siisaa horta adigu goormaad wadanka soo gashay oo qaxooti ahaan aad ku timid ku salaamaya adiga iyo asxaabta kugu xiran iyo wadanka waxaan soo galay December 2023 baan soo galay gobol Georgia leeyahay lagu soo dajiyay halkan Minneapolis waxaan u soo guuray muddo hadda laga joogo 6 bilood waa tahay marka qofku markuu sanad joogo green card xareeya green card kana goorma xareysa niyo green card waxaan xareeyay 2025 kii baan xareeyay April 1st waa gartay marka arintan dawladdu ay timid oo in baaritaan lagu sameynayo dadkii qaxooti ahaan wadan ku yimid kuwii green card ka xareystay iyo kuwa aan xareysan howlgalkaasi ayaa ku saameeyay marka waraaq ayaad heshay ka socota immigration-ka oo ballan lagu qabtay waraaqdaasi goormay ku soo gaartay iyo warqada sodonkii baa la soo diray koodii bay soo gaartay oo maalin sabti ah FedEx ba kulay bay ku timid ilinka idigan maalinkii markaan helaariba kulay waa joogay laakiin caalkii ma korshay qabteen damasku ogtaada cabsida jirto warqada markaan furay warqada waxa ku qornayd reason-ku wuxuu ahaa horta G65 bay warqada reason kan wuxuu ahaa Paris interview iyo green card interview waa gartay oo in baaritaan lagu sameynayo inaad ahayd qof markii wadankan uu imaanay qaxooti ahaan u qalmeeyay in kale iyo in green card kaadi lagu siiyo hadana in interview laga qaado sax waa gartay maadaama marka cabsi badan ay jirtay lawyer iyo wax ma raadsatay mise kaliya iska tagay ayna goobtii balanta lagu qabtay may عفوا درت جبت كل بقى انت صلور الصومالي ما الحريري لور كلمه عن هذا لكن الصومالي ما رصدي لور الصومالي ده ها كل بقى انا الهيلين midkii uu sukayon hilla kulay bay markaan u tago xiriir aniga 6 laba saac bar taariikh markay tahay ma hayo chance laakiin in cadana baan ku raacina ninka cadanka wuxuu iga bilaabay wardabi baad gashay waa maxay jiiska lagu soo diray waa gad wuu ku cabsi galiyay waa uu kal galiyay hadana waan waxa xiro ku soo laaban doona marka waxay soo wacay isla markii aan tiir lawyer ah oo la yiraahdo Maxamed Hamza yakii baan u tagay wuxuu yiri ku raacaya ma sha Allah dhayo aad wanaagsan oo la dejiyo marka iyada oo yiriniyo arintan waan ka warqabaa in kastoo aan naftirkeyga aan saaj badan aan sameeyay waxaa lagu wareysay wuxuu kulliba wax u soo martay markii processkan koowaad soo mareysay waa gartay marka ala kulli xaal kulliba aan warka u maalintii 6 ka markay ahayd baan israacnay asaga kulliba meesha iga hortagay waan kulliba ka dambeeyay gabar عدانا وبركة تيجي أنا فكرتي وجدتها وحياة كل بدي ده حدو تيجي دونتا أيها جوعان سو جاري كل بنت قال دونا لا كل بدونتا والوجود يرسيه واللو قبنا يا واللو حرية كذا دعسنا ده واللو علني واجر واللو علنا ما هي يعني التاني كمان واللو كل سنة حاصل حا كل بدي لما كي عايزها وما هو كمان الوجود يبقى واجرته ما كسر طرق حصلوا كرساس باهي هي ماشي aan galnay gabar kale wanaagsan baan la kulanay markaan halkii first interview waxa igu tiri way introduction waxay tiraani magaciga heblaayo way waxaan maanta ugu yeerno waxay tahay bisaado maana sidii aan short notice waxay tahay interview Paris baan rabnaa inaan ku yeelana oo dawladda hadda soo gaabisay waa gartay oo diyaar ma tahay marka waxa kiri waan cabsanaa still am nervous laakiin diyaar baan u ahay inaan interview marka waxa tiri waxba cabsanin anaga interview qaadayna kulli waxa tira horaan ba kuma aan jirin interview-gan oo dad kale ay interview ka qaaday laakiin anaga waxaanu nahay qaybta maartay refugee-ga u xil saaran USCIS ka tirsan oo refugee u xil saaran baan nahay inta badan baan ka soo qaaday dad interview oo horaan ba dad qoonti halkan la keenay dadkii horaan ba interview ka soo qaadanayn marka process-kana hadda dib ma dadka loo celinayo wixii horaan xagga ka soo qaadnay ama hadda dib ma dadka loo wareysanayo marka waxa tira waxba cabsanin it's just as simple as saado malaysa ma ahan arintu arin sahlan waa gartay anna waxay tiraahday sida baarta ugu wanaagsan markuu dhaqmaa insha Allah
waa gartay marka turjubaan ma u baahan tahay miya lagu yiri mise luqadda ingiliishka waad fahmaysaa ma ku weydiiyeen su'aashaas aad iyo aad waa shayga horeysa lagu weydiinayo intaan lagu dhaarinin interviewta laga qaadin waa lagu dhaarinayaa inaad ingiriis garanaysid inaad turjubaan u baahan tahay marka aniga kowdii horeysa ingiriis baan kusoo maray interviewga markaan waddanka imaanay marka waxay u tiri interview waxaan filaya inaad ingiriis kusoo martay haddana ingiriis baan interview kaga qaadaya turjubaan uma baahni soomaahan haa baan ku yiri marka waxay tiraaday intee in la-eg baad ingiriiska luqadda ingiriiska aad garanaysay aad kusoo hadlaysay muddo intee la-eg marka waan u sheegay oo waan u warramay marka interviewga u gudgashay way dhaarisay bilaa ugu horreysay marka de processka interview qaxootiga markii lasoo maraya oo horaanba sidii loo soo mari jiray caadiga ahaa marka immigration lasoo maraya bay ii maraysay interviewga introduction ku horreysay marka way dhaarisay dhaarintii kadib waxay ugu tiraahday magacaaga soo heblow ma ahan xaaskaaga magaceeda soo heblaaya ma ahan carruurtaada soo intan ma ahan soo halkan kuma aadan dhalanin okay ka gudub waxay ugu tiraa marka halkan markaan aan u maanashay main pointka oo ah laba su'aal oo ugu muhiimsan halkan oo ah past iyo future marka waxay ugu tiri waqtigii aad waddankii aad ka timaaday Soomaaliya baan rabaa inaan ka wareysto waa gartay marka bal iiga sheekay bay ugu tiraa maalinka ka soo baxday waqtigii iyadaheed bay ii magacawday waqtigaas baad waddanka ka soo baxday waxa ka soo bixiyey iyo waxaad la kulantay baan rabaa inaan maarta aad ii digtay aan maarta aan qoro waa gartay marka wixii horey aad u sheegto qorana la hayaa marka isla wixii lagu leeyahay noo sheeg marka correct double screen waaye kuleba screen laba screen bay kuleba interview ka qaadaysaa screenna hore waxaad soo sheegtay baa ugu yaala iyo hadda waxay maarta aad sheegaysid marka hadda marka aad ka sheekeynaysid bay wixii horeyna waa iswaafaqsan yihiin bay maarta ay qoraysaa marka iyada waa gartay marka su'aasha kuleba markaan ka gudubnay kadib haddana waxay ugu tiri that was the past now let's go back to now the future haye sababta aad waddankaaga aadan ugu laabani karin bal iiga sheekay bay tiri waa gartay marka de taa tii iyada ahaynda de wixii horaan baan soo sheegay oo aan xasuusnaan baan haddana aan u sheegay waa gartay marka su'aalaha iyada de horaan baa immigration ka soo maraya su'aasha aad yani sababta aad u laabanayna maxay tahay su'aalaha daba yaala waa gartay sababta adiga lagu beegsanaya maxay tahay waxayse ku ogaanayaan adiga inaad waddanka kusoo laabatay waxaan noocaas oo kale ah marka intiiba kulleyba de waxaan horaan soo aniga aan soo sheegay umaan xasuusnaa intii umaan haddana aan u sheegay sababtaan waddanka aan ugu laabanan karin sababta lii beegsan doona sababta ay ku ogaan doonaan kuwa ku beegsan doonaan intaba waa gartay waa su'aasha daba taalla oo bida futureka ah waa gartay waa gartay waka marka su'aalaha marka ma intaas oo kaliya laga weydiiyay arrintan Paris maxaa kaloo xigay markaa kadib may wax kaloo xiga ma lahayn su'aasha Paris intaas bay ahayd horaana de anigu ku sheegay intaan interview gelin waan research baan sameeyay warqad interview dadka uga qaadaan warqad I think G590 baa la yiraahdaa oo qolada immigration ay dadka imtixaanka uga qaadaan marka first warqadda kulliba waa un kooda horeysa waa un profileka magacaaga halkaad ku dhalatay haddaad carruur leedahay mise xaas leedahay kulli ku jiraan marka laba su'aal baa ugu muhiimsan marka adigu waxaad sheegtay xaas iyo family ma kula socdeen mise waddankay kaaga soo horreeyeen carruurtu way la socdeen waa gartay iyaga marka green card ma xareysan miya weli miya ma soo wada xareysatay waa wada xareysan green card marka horta ku argalay halka waxa ku yiri ciyaal iyo waxaan leeyahay reer interviewga kaliya baa lagu yaray inaan ayaga leeyahay Soomaaliya baan ku yaan weydiiyay marka sidoo kale bay squad wanaajisay inaad kaliya imaata fiicanta laana adiga qofka primary-ga case-kan wata marka iyaga maba loo baahno interview lama marsiinayo interview loo baahno ugu tiraday laakiin green card waa wada xareysateen kulli waa idin xareyseen waa gartay marka wada xareey marka waxaan ku yiri dad hadda interview looga qaaday xabsiga oo la xiray interviewga green card markii interview laga qaaday kadib green card kaligood baa la siiyey anigana ma taas baa igu dhici doontaa markaas waxay ugu tiri aniga qaybta refugee-ga la xisaaranayo oo interviewgana ah qaybta green card waa group kale inkastoo aniga lagu targana interviewga ka qaado oo green card-ka ayagu baa go'aan ka gaari doona oo kulliba haddii adiga kaliga ay approve ku yidhahdaan green card-ka dacaalkana waxay tiraa qasab approve ay doonaan waa gartay marka interviewgii Paris markuu dhamaaday haddana waxaa la yiri interview kale green card ah laga qaadaya maxaa lagu weydiiyay ka interview markay horta aan dhamayna waxay tiraaday interview waxaan adiga adirtan adiga aan ka qoray iyo wixii horaan aad yani aad waddan ku timaaday oo qofkii ah waan u gudbinaa supervisorkayga supervisorka marka aan arkaya go ahead wuxuu siiyaa bisaan uu soo yiraahda marka supervisorkii way u gudbisay supervisorkii go'aan soo siiyo ah in interview laga qaado haddana oo green card waa gartay marka interview green card kadib waa un su'aal interview maahan waa su'aalada un ah un almost like 11 baan u malayaa dhowr toban waaye oo no ah
واقرت او ها يا مايا maya ha oo dambi ma gashay wali ma ka qaatay yani su'aalihi waa iska garaysa interview kale wuxuu yahay oo just general questions way واقرتay oo no marka ilaa ay 12 su'aalood ilaa 10 su'aalood ilaa 12 su'aalood marka iyada waxay tirada like waxaan muhiim ma ahan like wali ma arkay dadka qofka interview ka qaado yes ilaa su'aaladan واقرتay marka sidaas bay kale badii ummadda waan u bishaareynayaa laana shaygan ugu bishaareyna waxay tahay kow waxaan filayay dadka sida la sheegay dadka interview dadka qaadaya waxaan filayay dad sida la yiraahday niman dawladda ay kaysato qaab military laga keenaa oo lawyer ila dadka interview ka qaadaya yiri oo aysta ma tahay ay ku xisaaran waa gartay gabadha waxay tiraaday waxaan wali lawyer isku warabaysay ku tiraaday dadkaaga u sheeg interview hadii loogu yeero waa inay ka soo qayb galaan mise waa inay imaadaan waa inaysan u goynin ama aysan u goynin waa gartay laana waxa waxay tiraaday like waxay hadda la raadinaya waxay tiraaday in qofku u gooyo biso kaliya waay waa gartay arrintaasina waa arrin muhiim ah marka lawyerkaadu ma kula fadhiyay marka su'aalaha lagu weydiinayay mise banaanku joogay bay lawyerku kolku wasla galisan asayna soo qaad laga rabaa marka uu ku doo fariisanaya lawyerkaaga uu isku dhigaysanaya uu qoranaya jawaabta aad bixinaysid iyo waxa lagu weydiinaya waa gartay marka maxaa kula talinaysaa dadka Soomaaliyeed oo cabsanaya oo dhahaya hadii interview lagugu yeero aysa meesha kugu sugayso ku qabanayso maxaad ugu bishaareynaysaa maadaama adigu aad soo martay hadda 6 bishan interviewgan sida aad sheegtana oo san si aad u dhib badnay horta ummadda waan u bishaareynaya oo cabsidii la filay horta ma jirto san leeyahay laana taayada waxaan ku hubsaday gabadha waan wareystay oo waan u rabo waxa ku yiri oo dadku cabsanayaan aniga tirkii hadda ku warfadhi waxa ku yiri cabsanayay oo waxaan filayay in halkan ilinka igu sugayso ice marka interview qadid markasta halka kama aanan imaanin annaga waxaan nahay tiraaday ummadii dadka ka soo qaaday interview waddanka keentay kuma aanan jirin programkan hadda la soo create waa ugu horeeya waa saysan leedahay waa dadka maanta laga qaaday interview marka waxay tii aniga waxaan tagay Kenya waxaan tagay Uganda waxaan tagay Rwanda waxaan tagay Malaysia waxaan tagay Turkiga waxaan tagay Betri South Africa dadka ka sheegaysa aniga qorshayaal kale keenay baan marka waxay tii dadka waxaan ahay halka dadka soo qaadan kan keena waa gartay marka shaqadii aan xaga ku soo qabanay ma dib loogu celiyay tii aniga nafkeena ومركا هوشا waan garanaynaa haytir dadkaanu inay si sharci ku yimaadeen garanaynaa marka processka sidoo u socdo marka dad garanay hawshan qaabka interview loo qaadan garanaya dadkii halkan keenay waaye waa tahay maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya wareysiga in bulshada Soomaaliyeed gobolka Minnesota ku dhaqan aad la wadaagtay interviewga iyo qaabka uu yahay waxaan filayaa dad fara badan oo iyaguna wadnaha farta ku hayay oo sugayay waraaqahaasi inuu interviewga u soo dhaco ama balanta wareysiga hadii ay helaan in iyaguna ay ku dhiiran doonaan laakiin dadka waxaan kula talinaynaa in waxyaabihii hore ay u soo sheegeen oo kaliya maskaxdooda ay ku hayaan maadaama la weydiin doono mar kale su'aalahaasi dib loogu celin doono aad iyo aad u mahadsantahay maxamed waa mahadsantahay thank you